sanadkii 1976 ayaa la aasaasay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir oo ka mid ah xarumaha caafimaadka ee daryeelka dhallaanka iyo hooyada ayadoo adeegyo caafimaad oo dhameystiran ay ka helaan bulshada Soomaaliyeed waxaana lagu dhisay mashruuca horumarineed ee dalka Shiinaha uu ka fuliyay Soomaaliya xilligaasi wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa bishii Febraayo ee sanadkan la wareegtay maamulka isbitaalka kadib burburkii dalka waxa uu ka kooban yahay qeybaha kala ah bukaan socodka nafaqa darada caruurta shuban biyoodka talaalka dhallaanka MCH-ka qaybta caruurta ee xanuunada faafa xanaanada gaarka qaybta caruurta bukaanada jiran ee la seexiyo ee loo yaqaan ICU iyo qeybaha haweenka oo ka kooban dhalmada qaliinka hooyooyinka caruurta lagu qalo qaybta la seexiyo hooyooyinka qaba xanuunada uurku jirka waxaana sidoo kale isbitaalku leeyahay farmashiyo iyo sheebaar oo 24 saac adeeg dhameystiran ay ka helaan bulshada Soomaaliyeed maamulka cusub ee gacanta ku haya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo muddo 100 maalin u buuxsantay tan iyo markii ay la wareegeen shaqada ayaa isbedel xoogan oo ka muuqda howlaha kala duwan iyo adeegyada uu bixiyo isbitaalka xilligan Fartuun Shariif Maxamed agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa sharaxday waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii ay la wareegeen maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka adeegyada isbitaalka loo qaban jiro oo ah qaliinka hooyada oo gasha communication waxa la yiraahdo obstetric gynecologist iyo problemka hooyada uurka la soo xiriira qaliimadaas oo kale waxaan sameeyay waxa kamid dhalmada inaan qaabilno caruurta noocyadiisa kala duwan cudurrada ay qabaan waxaas oo dhan waxaan u yeelnay inaan hubino horta daawooyinka isticmaalayaan tayadooda inaan kala saarno daawooyinkii dhacay iyo daawooyinkii fiican oo hal baqaar isugu daadsana waxaan u sameeynay nidaam baqaar aan u sameeynay oo aan istikaradii iyo isticmaalkii daawada aan hubinay iyo sida uu soo kala horeys in loo isticmaalo waxyaalahan aan ku dadaan waxa waa in aan stock control aan ku sameeyno in biri daawo u baahan tahay in kale waxa ka horeys inuu baqaarkaaga ku xisaabsan stockaga ogta bishii Febraayo waxaa ku dhashay oo anaga aan imaadna qayb kamid aan joogno waxaa ku dhashay 88 hooyo ayaa ku dhashay waxaa lagu qalay oo C-section qaliin kale lagu sameeyay 14 bishii Maars aan imaano waxaa lagu qalay waxaa ku dhashay 132 hooyo ayaa yimid adeega socdo dartiis waxaa lagu qalay 24 hooyo ayaa lagu qalay waa ilmo lagu qalay isbedeladan ka soo hadalnay si aan xog ogaanshahooda u helno ayaan xog wareysi la yeelanay qaar ka mid ah bukaanada oo noo cadeeyay inay helaan adeeg uu ka muuqdo daryeel iyo howlkarnimo shaqo maasha Allah marka cunugeyga oo diirana inta keenay waxa meel adiduudka besa u fiyoobay inta kale waa ka gubnay maasha Allah halaha imaad ilaa halahaana kunshin lacag maalna qaadanin cunugeyga alxamdulillah isbedel weyn wax waa la ii qabtaa qaybta lagu dhaqo kaliyaha bini'aadanka ayaa ka mid ah qaybaha sida weyn isbitaalka loogu baahi qabo waxaana yaala in ka badan 25 mashiin kuwaas oo lagu la tacaalo xaaladaha dadka aan dalka gudihiisa wax looga qaban karin mashiinadan waxaa ku deeqay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya muddo 5 sano ka hor shaqada isbitaalka ayaa mid si dardar u socoto oo isbedel xoogan laga dareemayo ayadoo dib u dhis iyo dayactir uu ka socdo qaybo badan oo ka mid ah isbitaalka markii horena uu burbur xoogan soo gaaray shaqaalaha isbitaalka ayaa aaminsan inuu jiro isbedel ugu faani karo oo dhashay boqolkii maalmood ee u dambeeyay xilligii agaasimuhu uu isbitaalka la wareegay shaqo aad u culus laga qabtay halkan waxa kamid ah daawadii meeshan taalay waxay u badnayd oo ka buuxay halkan baqaarkan muddana aan laga bixin daawo expire daawadii dhacdayna waa laga bixiyay teendooyinka la geeyay qaybtii kalena waa la kala saaray waxaan isticmaalnaa wax allaala wixii baqaarka soo gala waxaan ku xaraynaa stockarisku sida ogtiin waa hab standard oo caalami ah oo lagu la soconayo dhaqdhaqaaqa baqaarka kan ayaan ku xaraynaa nidaamkaas ayaan baqaarkii ku hagnay maamulkan iyo nidaamkan iyo systemkan waxay dhaqan galeen markii agaasinka cusub isbitaalka uu la wareegay halkan waa qaybta ay fariistaan dadka bukaanada isbitaalka waxa ay ku sugan lambarka dhakhtarka laakiin waxa ka muuqdo dhankan duruufo dhinaca dhismaha oo soo jiray muddo ka badan 40 sano maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir ayaa ku guuleystay in markii ugu horeysay dhaqaatiirta isbitaalka ay deeq waxbarasho dalka dibadiisa ugu diraan si ay ugu soo faa'iideystaan
siday ugu adeegi lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. runtii waxa uu halka aad ugu mahadceliyo shaqada wanaagsan ee uu noo qabtay agaasinka cusub oo ay kamid tahay inaan ku guuleysanay barnaamij minxa oo dalka dibadiisa kaasoo lagu talagalay isbitaalka oo ay nagu deeqday dowladda China. marka waa markii ugu horeysay Janiska aan ku guuleysto aan scholarship-ka oo China oo master degree ah ka aan ku soo diyaaro taqaskiga carruurta Abdullaahi Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.